أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله إن شاء الله تعالى waxaan rabaa inaan halkan xogaa ku baraarujiyo arrin yar oo muhiim ah oo Soomaalida dhexdeeda aad ugu badan. Arrinkaasi wuxuu yahay carruurtu marka ay weynaadaan ee ay gaadhaan da'dii ilkaha uu ka dhacay ama iliga maaragtay maxaan ku dhahaa ay ilka daadsanayeen eriyo ay isticmaalaan baa jiro. Ilmuhu markuu iligu ka dhaco waxay ku yiraahiin xagga dambe u jeeso ama meeshii aad u dhalatay intood dabadaada u jeediso iligii ka dhacay iska saaro xagga dambe intood u tuurto waxaad tidhaahdaa ilig xunow iga dhac ilig sanow ii soo bax. ereyada caynkaas oo kale ah diinta islaamka iyo shareecadu maxay ka qabtaa? qofka muslimka ee diinta islaamka sheeganayo waxaa muhiim ah tallaabo kasta uu qaadayo diintiisa in uu u bandhigo uu miisaan ka dhigo. haddii ay diintiisu ka noqoto ab iyo abtir baan ka soo gaadhnay, waan ahaan jirnay, waan maqli jirnay, way ahaan jirtay, ma adaa maanta burinaya, halkeed ka keentay waxyaabahan adigaagan yaree da'dan leeg hadday noqoto diintu ama ay noqoto arrinkaagu aad baa u culus tahay. waa waxyaabihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku eedeeyey gaaladii quraysheed ama gaaladii waqtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la joogtay. waxyaabaha uu ku eedeeyey ayay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. aayaddu waxay leedahay innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummah, yacni waxa weeyaan aabbayaasheen ayaan ka dhaxalnay waxan oon ka soo gaadhnay oo raadadkoogii ayaan ku taagannahay annagu. aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. aayaddanna iyaduna kadaalika waxa ay kuu sheegaysaa maa samicnaa bihada fi lmillati alaakhira. annagu muxamedow qur'aankani iyo dacwaddani iyo waxaanaad jeedinayso iyo towxiidkanaad waddo maanan maqal, oo ciddii hore kamaanan maqal. in hada ila ikhtilaaq, waxani waa waxaad adigu iska been abuuratay iyo waxaad iska dejisatay weeyaan. wuxuu leeyahay mujaahid iyo qataada ikhtilaaq ay kadaba been abuurad. idan waxa weeyaan gaaladii ayaa maaragtay maxaan ku odhanaysay waxyaabaha marka diinta ka mida loola yimaado waa waxyaabaha aad iska been abuurateen iyo waxaad dejisateen iyo waxaan waxba ka jirin. idan diinta islaamka waxay u soo degtay waa naxariis adduun iyo aakhiraba in ay ku badbaadiso ayay u soo degtay. waxyaabaha carabkaaga ka soo baxayo inaad ilaaliso aad iyo aad bay u qurux badan tahay. jaamicu tirmidi xadiidka raqamkiisu uu yahay 2616. saxaabiga loo yaqaano mucaad ibnu jabal radia allahu tacaala canhu ardaah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aalo badan buu weydiiyey. xadiidka qaybaha ugu dambeeyaan ka soo qaadanaynaaye nebiga calayhi salaatu wasalaam
وحكو يري كف عليك هذا يعني عرب كنتو قبطي بكو يري كان ما أركي ساها اسكجر أضدك كإلالي حديث كلنا واكو أها من سلم المسلمون من لسانه ويده طيب وحكو يري مركا معاذ قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به نبي إلهيو وحيابها آنكو هذا عربك آنك قد واقنو مالك قيامها ميانا نوقب سندونا فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ألسنتهم dadka bini aadamka naarta waxa lagu gelinayo mucaadow ma wax kala ilaa waxay carabyadooda ay kaga dhawaaqeen uun maahine carabka uun waxay kaga dhawaaqeen uun maahine waxyaabo kale oo ficil ka ah oo fal la sameeyo way jirtaa laakiin carabku waxyaabaha ugu daran buu ka mid yahay haddaba caadadani intee bay annaga nooga soo jeedaa in ilmaha yar marka uu iliga ka dhaco lagu yiraaho intood meesha dhalatay u jeesatid waxaad tidhaahdaa ilig xunow iga dhac ilig sanow ii soo bax meesha bay ka soo jeedaa kitaabka loo yaqaano taariikhul jazaa'ir في القديم والحديث مجلد كوبات صفحة 75 وحوليه سدة أما الديانة التي عرفها الأثريون لقدماء الجزائر فهي عبادة الشمس والقمر وهما من معبودات المصريين وعبادة بعض الحيوانات منها القرد والثور والكبش والتيس وحوير الديانوينك أما ديمها لقرتي oo ay garteen nimankaasi raadraaca ah oo kuwii hore Jazaa'ir ah waxa la helay inay dadkii hore qaar ka mid caabudi jireen cadceeda ama qorraxda iyo dayaxa kuwaana waxa iska lahaa masaarida ayaa iska lahaa qaarna waxay caabudi jireen xayawaanaadka waxaana ka mid ahaa daayeerka dibiga iyo wanka iyo layte orgiga inta marka uu ka soo gudbay باشيخ وحوري وقد وقع شعبنا فيما يقرب من هذه الوثنية والتاريخ يعيد نفسه dadkeena hadda aan taaganahay shacabkeenna waxay ku dhaceen wathaniyadan oo sanamkan waxyaabaha caynkan oo kala ah ay caabudi jireen dadkii hore wax u dhow ayaa maaragtay dadkii ay ku dhaceen taariikhduna way soo laalaabantayo way isku soo celisaa famin aathari ibadatihim lish-shamsi waxaa ka mid ah waxyaabaha inay dadku cadceeda caabudaan oo kala an alwalada xiinama yathghuru wa tasqutu as-sinnu yarmi biha ila ash-shamsi ilmaha wiilka yar ah marka uu maaragtay iligu ka dhaco wuxuu sameeyaa uu tuuraa xagga cadceeda ويقول لها في بعض الجهات الشمالية xagga iyo bidixda marka qaarkood wuxuu yiraahaa intuu tuuro ayuu yiraahaa a'taytuka fidda أعطيني ذهب وحانكو سيي فضة ذهب إسي ذهب إسي فضة انكو سيي وفي بعض الجهات الجنوبية جهات كجنوبية مركا قاركودنا مركا يطوريان وحيداهين أعطيتك سن حمار أعطيني سن غزالة وحانكو سيي إلك وحانكو سيي أما فول وحانكو سيي ضمير واحد إسيسا فول غزالة waxaa loo yaqaan deerada ama cawsha waxyaabaha ka agdhow oo dhan baa la yiraahdaa طيب idan waxa weeyaan hadaba zamankii jaahiliyada waxyaabihii wasaniyada ahayd ayaa Soomaalida dhaxdeeda ku dhex jira qaar kamida ilmaha yarka ah zamankii jaahiliyada waxay oran jireen iliga intay tuuraan ayay oran jireen qorraxda intay u tuuraan ama cadceeda u tuuraan ayaa waxay oranayeen waxaan ku siiyay ilig dameeray waxaad igu bedeshaa ilig maaragta deera ama cawle igu bedel waxaan ku siiyay ilig lacag ay waxaad igu bedeshaa ilig dahaba طيب وأرن عجيبة مركا كتابك لو يقانا إساقنا أخبار القضاة لو يقانو مجلد كصدحات صفحة لحدا يكو وحوليها إساقنا سدة
عن ابن شبرمة قال سألنا الشعبي عن هذا البيت نينك شبرمة اللي يراهو أيا وحو يري وحان ويدين الشعبي بيت كان قبيقع أيان ويدي بدلته الشمس من منبته بردا أبيض مسقول الأشري marka meesha usuri baa qoran laakiin waa ushuri caadi ahaanteeda idan haddaba wax weeyaan wuxuu yiri sheekhu isaga oo sii waday hadalkii faqala kana as-sabiy fi al-jahiliyyah idha athghara aqbala bi sinnihi ala ash-shams fahadhafaha thumma qala abdilni khayran minhu ufers wuxuu yiri faqala kana as-sabiy fi al-jahiliyyah waqtiyadi jahiliga aha ilmaha yar marka uu iligu ka dhaco uu jeesan jiray oo xagga iyo cadceedu u jeesan jiray markaasuu tuuri jiru oran jiray waxaad iigu bedeshaa ilig ka khayr badan ha Soomaaliduna maxay tiraa ilig xunow iga dhac ilig sanow ii soo bax idan waa arrimo isku yimid weeyaan dadku way ku dhawaaqaan ereyadan meel ay ka keeneen mana garanayaan halkay kaga yimaadeen waxan maxaa waxyooday asalkiisi shaydaan baa u keenay waxan bal fiirso haddaba waxa weeyaan diinta islaamka ah dadka waxay ka reebtay waxyaabaha jaahiliyada ah way ka reebtay في صحيح البخاري وحكو يمد حديث ابن عباس والنبي عليه الصلاة والسلام كورينيا وحول النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه حديثك أنت أنا قدا لي وحويا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية إيا الشخص يكون رادين يدين إسلامك وحيابه جاهلية دا أحيد إنو صون ولايو وصوتو سيعد ماركت محان كوراها كرادين عيسى إمام الترمذي جامع عيسى وحكو ورينا يا إساقنا وحكالو لو ورينا يا الإمام النسائي في السنن الكبرى حديث كرقم كيسو هي سديد كن سديد بقل لحدن يلح وحكالو لو ورينا يا ابن خزيمة في صحيحه حديث كرقم كيسو هي كن سديد بقل سقاشن يشن وحكالو لو ورينا يا أبو يعلى في مسنده رقم كن شنبقل تضباطن يكو يا هيثمي رقمك سقال كن يا سقاشن يا أفر حديثكو وحاوليه هي نبي عليه الصلاة والسلام وحكورنا يا صحابي قال له يقال حارث الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وحول النبي عليه الصلاة والسلام من ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم يعني وحيابها دعوة الجاهلية ده الجاهلية عدي الشيك شيكتا التي مادة وركاسي لصوبان بحدا فهو من جثى جهنم وحن نقندنا كوا ماركت محان كوراها لغصو أرنيو من جماعات جهنم أيون نقندنا كوا جهنم اللي كين أيون نقندنا والعياذ بالله إذا قفك مسلم كاوحويان وحكستا وكل واقعيو إنه إسك إلالي آد إياد بأمهن طاهي حديثان تنمركعات في رسو وحديثان كود ديجيا وحكاجة ديجيان وحيابها جاهلية إنا أتكون قنطو إذن وحويا وحيابه جاهلية إنت أنت عن ميزانك هكون نقض شريعة الإسلامك وحن مصحبا مغلظ با ميزانك وإنه النقضة دينة إسلامك أو دردكتا إذن وحويا waxaan rabay intaayr inaan baraarujiyo umada waxyaabahani meel ay ka timid iyo meel ay ku socoto aanan la garanayn inaan u cadeeyo ayaan rabay wax wanaaji ayay iga ahayd hada billahi tawfiiq waxaan rabaa umada in la sii gaarsiiyo oo maaragtay ay umadu waxani ka waantoodo hada billahi tawfiiq wallahu a'lamu bisawab wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh